bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum daawadayaal saaxiibayaal halkan waa nuxurka wararka ee soo dhowaada haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka ka taagan waxyaabaha aad ku daawan doontaan haddii Alwin Raalli ka noqdo barnaamij wareedkeenan waxaa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaare Roble oo sheegay inay saxayaan qaladaadka ka jira doorashooyinku waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha ku saabsan madaxweynaha Puntlandna waxa uu kala furfuris ku bilaabay saraakiisha ciidamada Puntland warbixinayaan idinkaga haynaa iyadoo garab ka mid ah saraakiisha ciidankaasi BSF-tu ay dhanka Deni ay aadeen waxaan idiin soo gudbin doonaa dhacdooyinka markaasi ugu dambeeyay arrimahaasi ka taagan waxyaabaha kale sidoo kale barnaamij wareedkeenan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Qaahira halkaas shirkaasi amaba safarkaasi muxuu daaran yahay warbixinayaan sidoo kale idinkaga soo gudbin doonaa waad ku daawan doontaan qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan halkan waa nuxurka ee soo dhowaada daawadayaal haddii aad ku cusub tahay ku soo biir si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya caalamka bogga Facebook-ga ee nuxurka wararka iyo sidoo kale bogga YouTube-ka ah waa channelka YouTube-ka ah ee nuxurka wararka sidoo kalena gambaleelka furo like saar oo la wadaag saaxiibadaada arahdana ka dhiibo aynu ku bilaawno Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inay saxayaan qaladaadka ka jira doorashooyinka dalka Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu garowsan yahay muhiimadda ay leedahay inay qabsoonto doorasho hufan oo xalaal ah laguna wada kalsoonaan karo si nabad ahna ku dhacda Ra'iisul Wasaaraha oo shir markaasi looga hadlayo arrimaha kala guurka ahi ka furay magaalada Muqdisho maanta waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in ay saxaan wixii qalad ah ee ka jira hiisinaanta amaba wixii qaladaad ah ee ka jira sinaanta amaba hufnaanta iyo habsami u socodka doorashadu ay sixi doonaan Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Xuseen Roble waxa uu sidoo kale uu sheegay in wada tashiyada ay sameynayaan uu rajeynayo inay markaasi uga soo baxaan halka uu markaasi marayo hanaanka geedi socodka dalka iyo arrimaha doorashooyinku warkan ka soo yeeray Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ku soo beegmaya xilli inta badan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xubnaha midowga musharaxiintu ay cabasho ka muujiyeen hanaanka ay ku socoto doorashada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya taasi oo sidoo kale markaasi si weyn ugu dhaliileen xubno ka tirsan kulankan ayaa waxaa ka qayb galaya ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahano Soomaaliyeed iyadoo kulankaasi uu daafuray Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble kulankaasi oo ah mid markaasi wada tashiga ku saabsan iyo soo tabinada amaba taabagelinta geedi socodka dowladnimada xilligan kala guurka ah geesta kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa furfuris ka bilaabay saraakiisha ciidamada BSF-ta agaasimaha hay'adda BSF uu dhawaan u magacaabay madaxweynaha Puntland ee aan xilka markaasi lagu wareejin sareeyo guuto Amiin Xaaji Kheyr ayaa taliska cusub ee ciidanka BSF ku soo dhaweeyay agaasima ku-xigeenka ahna taliyaha guud ee ciidanka BSF-ta gaashaanle sare Cabdiraxmaan Ilig iyo gaashaanle dhexe Cabdirasaaq Cali Duulane garaadka agaasima ku-xigeenka hay'adda BSF ayaa wada hadallo sababtay inuu soo wareego waxa uu la galay wasiirro ka tirsan xukuumadda maamulka Puntland sidoo kale agaasimaha BSF oo ay weheliyaan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus iyo saraakiil ka tirsan ciidanka BSF iyo daraawiishta ayaa yeeshay kulan gaar ah oo ay uga hadleen sidii loo xalin lahaa khilaafka ka dhashay xilka qaadistii agaasimaha hay'adda BSF madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdilaahi Deni ayaa waxaa la sheegay in maalmihii aynu soo dhaafnay uu waday qorshayaal uu ku kala furfurayo saraakiisha ciidamada Puntland si uusan dagaal uga dhicin magaalada Boosaaso garab ka mid ah saraakiisha ciidamada BSF oo u wareegay dhinaca Deni ayaa sidoo kale qayb ka ah iyadoo wararkaasi soo baxay ay sheegayaan in Cabdilaahi Ilig oo ahaa taliye ku-xigeenkii guud ee ciidamada BSF ee Puntland uu ku biiray garabka xukuumadda madaxweyne Deni si uu markaasi halkaasi u geeyo taliyaha amaba agaasimaha hay'adda BSF uu dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Puntland ee aan xilkaasi lagu wareejin Amiin Xaaji Kheyr oo markaasi taliska cusub ee BSF markaasi lagu soo dhaweeyay oo markaasi halkaasi ay noqdeen
garab uu si weyn kaga faa'iidaystay amaba galaangal uu ku sameeyey ciidankaasi qaybahooda kala duwan Deni oo ah madaxweynaha Puntland. xukuumadda Deni ayaa wada qorshe lagu kala furfurayo saraakiisha ciidamada PSF xubnahooda sarsare si dagaal uusan uga dhicin Boosaaso. xaaladda magaalada Boosaaso ayaa haatan ah mid degan, inkastoo xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni ay ciidamo aad u fara badan ay geysay xaafadaha magaalada Boosaaso, halkaas oo ay sidoo kale cabsi xooggan ay ka jirtay maalmihii aynu soo tagnay, taasi oo sidoo kale ay noqdeen kuwa markaasi si weyn looga diiday ama looga cabsanayay inay ka dhacaan dagaallo dhiig badan uu ku daato, maadaama ciidan badan oo qaybaha Puntland ka tirsan halkaasi la gaarsiiyey amaba la geeyey. geesta kalena Soomaaliya wafdi ka socda ayaa gaaray Qaahira. safiirka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Masar ahna wakiilka joogtada ah ee ururka Jaamacadda Carabta Danjire Ilyas Sheikh Cumar ayaa garoonka caalamiga ah ee Qaahira waxa uu ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdilqaadir Maxamed Nuur. wasiirka cadaaladda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa safar shaqo ku gaaray magaalada Qaahira ee dalka Masar. wasiirka ayaa ka qayb gali doona shirka wasiiradda cadaaladda ee Jaamacadda Carabta oo la filayo inuu dhawaan halkaasi ka furmo. sidoo kale wasiirka ayaa inta markaasi halkaasi uu joogo waxa uu kulamo kala duwan ula yeelan doonaa mas'uuliyiin ka tirsan wadankaasi Masar oo markaasi la ogsoon yahay in saaxiib dhow ay la tahay dowladda Soomaaliya oo ay sanadaha markaasi tan iyo burburkii kadib ay kaalin weyn ka qaadatay dib u dhiska dhanka iyo kaabayaasha waxbarasho ee dalka, iyadoo sidoo kalena ay qayb ka tahay saaxiibada markaasi dhow ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. haddii aynu sidoo kale isla wararkeena aynu ku sii jirno iyadoo si toos ah nooga daawanaysaan nuxurka wararka saaxiibada na daawadaay, waxaanu aanu eegi doonaa oo aanu markaasi idiin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ku saabsan xaaladaha markaasi ka taagan Soomaaliya iyo waxyaabaha markaasi jira. guddida doorashadu ayaa laalay habraac ay gaareen amaba ay qoreen Mahdi Guuleed Ra'iisul Ku-xigeenka iyo gudoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi ee Somaliland. doorashadoodu guddida doorashooyinka heer federaal ee VAT ayaa markaasi laalay habraaca doorashooyinka ee kuraasta gobolada waqooyi Somaliland, kaasoo ay sidoo kale diyaariyeen gudoomiyihii hore aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed waa Mahdi Maxamed Guuleede. habraacaas ayaa horey loogu maamulay doorashadii kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana lagu doortay 11 kursi oo markaasi guddida odayaasha ay ku leeyihiin Somaliland. waxaan cadeynaynaa in habraaca ay soo diyaariyeen mas'uuliyiin ka tirsan golaha baarlamaanka ee ka soo jeeda Somaliland aan lagu dhaqmi karin. guddida doorashada Somaliland wuxuu ku shaqeynayaa habraaca golaha wada tashiga qaran ayaa lagu yiri war ka soo baxay VAT. Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi ayaa horey loogu eedeeyay inay ku takrifaleen awoodda maamulka doorashada ee aqalka sare, isla markaana ay boobeen sida la sheegay kuraas ay kaga mid noqonayaan baarlamaanka 11aad, isla markaana kuwa kale u boobeen shakhsiyaad saaxiibala ah. waa sida la wariyay. hase yeeshee tallaabada guddida doorashooyinku heer federaal ee VAT ayaa ka dhigan in xafiiska Ra'iisul Wasaaraha uu hoos u dhigayo awoodda Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka iyo gudoomiyihii aqalka sare ee doorashooyinka Somaliland, iyagu markaasi maamulaya doorashada Somaliland. waa doorashooyinka Somaliland ama Soomaaliya oo muddo sanad ah dib u dhacay xilligii loo qorsheeyay ayaa ku bilowday markaasi qaab markaasi si weyn looga deeriyay oo lagu tilmaamay boob baahsan, iyadoo markaasi doorashooyinku iminku ay socdaan, taasi oo sababtay cabashooyin xooggan, iyadoo musharaxiintu ay qaadaceen natiijada doorashooyinku soo baxday. weli waxaa taagan doorashooyinku buuqa ka taagan, iyadoo guddida doorashooyinkuna ay xalinayaan tabasho iyo buuq markaasi dib ugu soo laabtay oo markaasi loo soo jeediyay in ay xal ka gaaraan amaba ay xaliyaan. nuxurka wararka ayaa daawanaysaan, halkan waa halka aad ka heli lahayd wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. ku soo biir, la noqo saaxiib, la wadaag saaxiibadaada, aaraahdaada ka dhiibo, gambaleelka furo, sidoo kalena saaxiib markaasi shirgaray oo ay saaxiibadaada la wadaag. guud ahaana inta ayaa ku ekeenaya warbixin wareedkeenan. saaxiibadana daawadaa inta warbixintan teeda kale aan ku kulmi doono, waxaan idin rajeynaynaa sidaa iyo nabadiino amaana Allah.